Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada YouTube waan idin xiisay. Halkani waa kanaalkayga YouTube ee Cabdirasaaq Faras. Soo noqosho wanaagsan. Muddo dheer kadib waan isku soo laabanay. Safar dheer kadib waan isku soo laabanay. Insha Allah waxaan isku dayaa inaan muuqaaladii kala duwanaa ee aan soo dhigi jiray inaan soo dhigo sidaas si lamid ah. haddii aan waqti fiican u helo waxaan sii wadi doonaa recorded videoska ama filimada ka shakeyntooda oo markaa la soo gaabiyey. Inta kale ee soo hortana waxaan idin la wadaagi doonaa wadamo ama wadan la dhistay anagana insha Allah keeno. waxaan rajaynaynaa inaan aad u dhisano. muuqaalkani hadda wuxuu taaban doonaa meelo badan oo qurux badan oo UK ka mid ah. halkaani waa kanaalkayga Cabdirasaaq Faras. kusoo dhawaada saaxiibayaal mar kale iyo mar kale. muuqaalka qaybtani waa Vauxhall Hall Station. markaani waxaan kusii wajahnahay Victoria. sidoo kaleeto stationkani waa mid caan ah oo inta badan magaalada dhinacyadeeda kala duwan loo kala goosho. waxyar kadib waxaan arki doonaa webi aad u qurux badan kaasoo magaalada kala qaybiya. markaani waxaan soo dhaqaaqay ama aan kusii wajahanahay Victoria. webigan waxaa lagu magacaabaa Thames River, waana mid kala qaybiyo magaalada. meesha markaan aan kusii dhowhay oo aan kusii jeedo waa halka aanu ka raacno basaska magaalo to magaalo. waa Victoria halkaani. xilliga aan duubayo muuqaalka waa xilli qorxeed aad u qurux badan. waxaa isqabsaday doogii geedihii cagaarnaa iyo cirkii oo daruuro qurux badan ay saaran yihiin. halkani waa wadada dheer ee labada magaalo Gloucester iyo sidoo kaleeto London isku xirta. haddii aad doonayso inaad aragto dhul quruxdiisa, deegaanka waa in dhirta ama waxyaabaha dabiiciga la ilaaliyo, weliba aanan lagu tagrifalin oo aanan nabad guur lagu sameynin. haddii aad aragto dhulkani waa dhul aad u qurux badan. marka aad indhahaada ku qabato dooga iyo guryaha yaryar ee kala fogfog iyo banaanada, indhahaagu aad bay u jeclaysan doonaan. maxaa yeelay ma jiro dhul ciriiri ah oo guryo is dul saaran iyo waxaan nadaamsanin halkan, ama buuraha, geedaha iyo dhammaan dhirtan oo aad loo nabadgeliyey ama aanan la jarin waxay ka dhigtay dhulkii oo idil dhul fidsan. sidoo kaleetana geedo iyo dhir aad u yaryar ku camiran. waa qurux miiran. maalin walbo ee aad ku safrayso maba u baahnid xitaa in waxyaabo kale oo aad isku mashquuliso. waxaa u baahantahay oo keliya inaad iska daawato meelaha quruxda badan. sidoo kaleeto UK ama Ingiriiska marka aad joogto waxyaabaha cajiibka la yaabayso waxaa ka mid ah in gawaaridu ay iska dhaafaan
dhanka iyo bidixda. Adiga saydka aad leedahay bidixda weeyaan haddii aad darawal tahay. Marka waa wax cajiiba. Way adag tahay in Yurubta kale dadka ka yimaado ay la qabsadaan. Laakiin ugu dambeyn darawallada farta ka xiran isla markiiba way ka soo baxaan oo ay fahmaan. Maxaa yeelay adiga oo u bartay inaad midig ku socoto haddii aad dhanka bidix rulis ah waddan ay ka jiraan aad timaado, waxay noqonaysaa arrin marar badan inuu ganaax kugu dhaco sababi karta. Marka aad ka soo dhaqaaqdo dhanka iyo London ee aad ku wajahan tahay Gloucester, waxaa jira magaalooyin kaleeto oo la sii maro oo markaa dadna ay ku degaan sidoo kalena dad kale ay inaga soo raacaan. Magaaladaasi hadda aan sii marayno waa Cheltenham. Waan kasoo gudubnay oo waa kasoo qaadnay dadkii ina soo raacayay baskii ayaan sarnayn, kuwii degayana waa ay degeen. Magaaladii waan kasii dhex bixinaa iyadana muuqaalo kale kasii qabtay. Dhulkani waa meelaha ay ku tilmaamaan baadiyahooda ama miyiga countryside. Marka anaga baadiyaheena ama magaalada xitaa banaankeeda sida Ceelasha Biyaha, magaalada Muqdisho banaankeeda iyo magaalooyin kaleeto banaanadooda dabcan waa ay qurux badan yihiin. Inkastoo dhismayaasha wadooyinka iyo nidaaminta dhirta iyo waxaasoo dhan ay u baahan tahay in waqti badan waddankeena la geliyo. Laakiin waxaan hubaa dhulkeena waxa uu haystaa waa dhul haysta qorax iyo dhammaan waxyaabaha dabiiciga ee ka yeeli kara inuu qurxoonaado dhulkaasi. Haddaba dhulkani marka roobka yarka uu ku da'o, qoraxdaas oo haysto, wadooyinkiisana oo sida ay u nidaamsan yihiin, dhirtiisana aanan la faragelin oo la dhibaataynin, waxaa ka dhashay quruxda intaan le'eg. Xilliyada aan daawanayo quruxda dhul aynan inagu lahayn, waxaan isweydiiyaa dhulkeena goorma ayaa si qurux badan oo aad looga taxadaray la ilaaliyay, goormaad arki doontaan oo aad daawan doontaan. Nasiib wanaag jiilkeenan insha Allah iyo dadka hadda inaga horeeyo oo kaleeto waa ay dadaalayaan. Inkastoo cilado iyo culaysyo fara badan ay iska jiraan, haddana waan hubaa insha Allah maalin maalmaha ka mid ah wax walbo inay noqon doonaan qurux iyo horumar in la gaaro oo one day oo maalmaha ka mid ah waxaana soo mari doonto in waddankeena aan dib u dhisno, qurxino oo aan ka dhigno mid loo riyaaqo. Saaxiibayaal, muuqaalkani wuxuu quseeyaa labada magaalo ee aan hore u soo xusay. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan iyo muuqaal kale oo dambe.